mas-uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland ayaa xarunta wasaaradda hawlaha guud uga furay shaqaalaha wasaaraddaasi tababaro ay ku saabsan diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee qaranka oo wasaaradda hawlaha guud ka bilaabaysa guud ahaan dalka. furitaankii iyo tababarkaasi waxaa ugu horreyn hadal ka soo jeediyey kuna dheeraaday nuxurka ku jira diiwaangelinta hantida maguurtada ah iyo sida loogu baahan yahay inay shaqaaluhu fahmaan agaasimaha waaxda dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland Maxamuud Maal Cali iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur. waxa la wixii hantida guud ee dalka ku taallay baa la inaga rabaa inaynu soo diiwaan gelino. waa hawl culayskeeda leh cidda u dhabar adayga si hawsha inay soo gasho ama soo qabato la rabaana waa intiina meesha fadhida. waxay u baahan tahay isxilqaan. hawsha maanta aynu halkan ku furaynaa waa tababar iyo seminar ku saabsan habkii loo soo diiwaangelin lahaa hantida maguurtada ah ee qarankan uu leeyahay. waajibaadka hantida maguurtada ah ee qarankan leeyahay waxa uga mas'uula dawladda dhexe. wasaaradda hawlaha guud ayaa uga mas'uula in wax laala wixii hanti guud oo ah dhisme iyo haddii dhul bannaan tahay oo ay leedahay qaranka uu leeyahay. xeer nidaamyaha ama xeerka kala xadeynta ee wasaaradaha waa waajib ka mid ah waajibaadka ay u xil saaran tahay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta. qodobkiisa 8aad baa wuxuuna farayaa waa in qaranku yeesho diiwaangelin mid degmo mid gobol iyo mid heer qaranaba. maanta waxa weeye ka aynu tababarkiisa ku qaadanaynaa waa mid lagu tegayo dhammaan 6 gobol oo ay ku sii hoos jiraan gobolladeena oo maanta 14 ka kooban. wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo isla dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga uu guud ahaan dalka ka bilaamayo diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee qaranku isagoo dhammaan hay'adaha dawladda ee arrintaasi qorsaysan u soo jeediyay inay wasaaradda hawlaha guud ee kala shaqeeyaan arrintaasi. diiwaangelinta hantida maguurtada ee dalka oo dhan ka dhacaya oo bisha 9aad kowdeeda bilaabmaya taasoo ah in la diiwaan geliyo wixii hanti maguurta ah ee dawladdu leedahay ama dhul ha ahaado ama ha ahaado guryo ama ha ahaado madaaris iskuullo ama ha ahaado meelaha caafimaadka ama meel kasta oo dawladdu leedahay ha ahaadee meel kasta dhismo kasta oo dawladda leedahay oo maguurta ah in la diiwaan geliyo. seerfaradan imika hargeysa yaalaan ay ku soo dhacaan markii la diiwaangelin markiiba ku soo dhacaan. shaqaalahana waxaan ku boorinayaa waxaan ku gubaabinayaa in hawshaas waqtigii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay inay u qabtaan oo ah muddo 20 casho ah ilaa bisha 9aad kowdeeda ilaa bisha 9aad 20keeda. wasiirka wasaaradda hawlaha guud geesta kale waxa uu fariin u diray dhammaan maayirada dalka isagoo u soo jeediyay in dhulka danta guud ah xil la iska saaro isla markaana aan lagu takrifalin. waxaa jira in badan oo maayirada ka mida in badan oo haddii beedinkeeda leeyahay ka mida dawladaha hoose in badan oo dad aan xilba dawlad u haysa ahayn in dhulkii sidaan imika 8 bilood ugu dambeysay u jeedinay in dhulkii boob lagu hayo oo sidaan u sheegnay horeba uu noqday arigii dhoofayay meel iyo cid la nabadgeliyana aana jirin. intii aanu ilaalin karayno iyo intaanu gaari karana aanu ka shaqayno. Cabdiqaadir Xuseen Urdacar iyo Maxamed Salmaan Maxamed warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.